kaamka barakacayaasha ee naf iyo maal oo ay ku noolaayeen 500 oo qoys ayaa waxa uu ka mid yahay goobihii dabka la qabadsiiyay intii ay socdeen dagaalkii u dhaxeeyay labada maleeshiya beelood ee ku dagaalamayay degmada Luuq ee gobolka Gedo. Waxaa maanta kormeer isugu jira qiimeyn iyo kurgalidu ku tagay mas'uuliyiintii degmada Luuq ee gobolka Gedo u gaaray inay kala dhaxgalaan beelahaasi walaalaha ah. gudoomiyaha degmada Luuq Daahir Maxamed Nuux xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo wakiilada Jubbaland oo goobta ka hadlaya waxay sheegeen in halkaasi ay ka dhasheen qasaare isugu jira naf iyo maal isla markaana loo baahan yahay in dadkii ka barakacay kaamka naf iyo maal loo gurmado. waxayna dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ee waxaysta ugu baaqeen inay gurmaday gaarsiiyaan. aan soo gaarin hadda maanta waa meeshii uu ka dhacay maalooda dhibka oo guryihii la gubo koobaad waay meesha uu ka dhacay dhibaatada dadna uu ku dhintay hadda shalina waxaa tagteen umana qaybtii oo ganacsiga oo waratada oo gubatay tanna waa tan arka hadda waftiga kulay inay indhahooda wax ku arkaan way ujeedada meelay ku dhigay khasaaro nafi maalba leh deegaankan magaalada meelay raayna fi maal mayn doogaana ka aragnay guryaal la gubi kareetooyin la gubi mootooyin la gubi meel dadka dhamaadeen dad badan la ka dhamaayay dad oo nahay mabarmageyte dhabanjeysadaan masaakiin inay ka dhamaadeen marka qadar rabbi hayti taageerada hayti ku tacsiyeen cid kasta dhibaato meeluha ku deerti ka tacsiyeen ilaahay boogday inta dhimatay ilaahay naarisa بيدنا كريمون إنه كسرنا ما اللي رئيس وفد الله قدري دولة فدرالية دولة جمهورية جوبلان ما يحقق جان إن شاء الله تعالى ولا خسارين ميلون كلين ينارجنا ما يكل الدولة عالم كيوم مدرسة مالية تكيلة هاي والسيم حسنين تأذن كباغنا إن تكون لها عاوية ولا لها أن تسكت دجالي دبك جيسدي دبك نس جيسدين إلى هاي دكتور نبتة دقة بركة ما يبلناها Soomaali gee waqtiga tala rooga wal nabad ahayna iyo meel wala taro male wal qabiil ka dili guri la gubi xoolo la shalqaadi meel may ka deerow walaag horan dhiidhiyan wala kala hay kuwaan taway intii walaale dhabkan hadeerina ilaahay aan boogday halka maanta aan taaganahayna waa xaradii naf iyo maal ama qaxootigii dadkii xoolahooda iyo maxalli fatahaadihii beerihii iyo xoolihiiba ay ka laayeen ay ka soo baabeen ay degnaayeen dib u dejinta ay degmada iyo hay'adaha u sameeyeen meeshii ay degnaayeen ahayna meeshii koobaad ee dagaaladii dhacay ee dadka walaalaha ay ku diriray degmada laga bilaabay dagaalka iyo gubitaanka waxaan indhahanaga markaan ku arkayno hadda goobtan taagan ay tahay meeshii lagu dilay laba gabdhood hooyo iyo gabar ay dhashay iyo gabar yar oo shaqiir oo umul oo 40 casha maxalli ahdaay umashii ka baxday ayadana jiiftay meesha hadda aan taaganahay waa goobtii ayada ahayd bal dhibaatada iyo waxa gaaray si aan u qiimeeyno baana socdaalkan uu yahay insha Allah taala meelo badan baan soo marnay oo khasaaro fara badan uu yeelay mootooyin maxalli ahdaa yar karatooyin ay dadka ayaga ku xamaalanayeen intaba iyo guryihii ay deganaayeen iyo wixii u yeelay ee agab ahaa ama lagu seexanayay ama wax lagu cunayay intaba ah marka waa khasaare aad u balaaran waana dhul aad u balaaran oo markii aan dhaxmareynay masaafadeedu ay ilaa 2 kiiloomitir iyo 3 kiiloomitir ku dhow ah weeye masaafada maxalli ah ay dabka iyo khasaaraha uu geystay dagaalkii uu saameeyay waxaan leenahay marka insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala walaalaha muslimiinta ah ee diriray waxyaabaha ay geysatay saameynta ayada aad bay u fara badan tahay insha Allah ta'ala waxaan rabnaa marka in waxyaabihi aan wadnay nabadeyntii iyo dadka walaalaha diriray aan ka bilaabayna khasaaraha iyo dhibaatada sida ay u dhacday inaan xog ogaal buuxa u noqono soo gaarnay xaafadihii meel kamid shalay waxaa tagnay suuqa waratada maantana waxaa joognaa xaafadii oo kow la gubay oo la yiraahdo naf iyo maal xaafadan waxaa degnaayay dad oo ka soo baaba'een beertii hore bixi ahaa beerihii ka soo leeday ka soo dhamaaday biyihii galay beerihii eber ka noqday ayaa deganaa inta badan macnaha maxaa dad deegaan iyo dad barakayaal baa iskugu jireen marka ilaahay wuxuu qadaray maanta macnaha maxaa la sheeg inay haddana ayagoo barakayaal ahaa
oo beerihii ka soo hallaabeen inay haddana sii barakacaan oo col iyo dhibaato iyo rafaad uu gala marka Allah qadaray marka insha Allah bidnaa kariim anagana maanta hindheen ayaan ku ahaan wixii oo dhibaato ee meesha ka dhacay inaan hindhaha anaga aan ku aragno marka hore halkan waxaan u nimid wixii luuq ka dhacay oo dhibaato ahaa oo dagaalkii ahliga ahaa oo qasaaraha uu geystay inaad maxaan ku iraadaa soo aragno meel kastoo ay wax ka dhaceen hadda halkan aan taagannahay waxaan ugu soo baxnay guddi soo indheeya tuuladan oo ay mindhaa sida hadda la ii sheegay dhowr boqol oo qoys ay ku noolayd 550 qoys ay ku noolayd wixii ka dhacay inaan soo aragno guddigaasaan madax u ahaa kolay waa soo kormeernay wixii carradan ka dhacay naf iyo maal in lagu baabaayo dhibaato badan ay carradii ka dhacday goobtan hadda aan taagannahayna goobtii ay gabadha ay dhashay ku dhinteen iyo cunugta saqiirta oo lagaga cararay 3 ruux ay halkan ku dhinteen waa meesha hadda aan taagannahay guud ahaan isku soo duub waxa loo ka dhacay wax caadi ah maaha qasaare ballaaran oo naf iyo maal lahaa dhacay sidaa awgeed dowladda federaalka oo aan ka tirsannahay hay-adaha caalamiga kuwa lookalka ah shirkadaha dalka sida hormuud dahabshiil iyo cid kasta oo waxhaysata waxaan ugu baaqaynaa arrinta loo ka dhaqday arrin caadi maaha in arrintaa wixii laga geysan karo oo gacan ah in laga geysto wixii dhintayna haddee ilaahay ha u naxariisto wixii hadda dhaawaca hoo yaalana ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu bogsiiyo